بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ugu talagalay inaan ka hadlo laba qodob oo kala ah qodobka koowaad oo ii noqonaya qodobkayga ugu horeeya oo inaan rabo inaan u jawaabo qolada harti ee xukuumadda kulmiye ku jira ee gulwadayaasha ah. marka hore horta waxaan leeyahay markaan si guud iyagoo dhan aan isku duuduubo aan uga hadlo oo nimayaha gulwadanimadu sidaa ma aha. gulwadanimadu waxay leedahay basar iyo asluub ayay leedahay haddii aad gulwadaynaysid sida aanu ka warqabno qolada harti ee xukuumadda kulmiye ku jirta nin deegaankiisii tegi karaa ma jiro, nin deegaankiisii ku noqday ma jiro. markaan ka hadlo gaar ahaan qolada dhulbahante ka ugu shisheeye ee ka babaxa Hargeysa Laascaanood ma dhaafo. Laascaanood buu beri joogaa dalxiis u tagaa oo iskaga soo noqdaa. marka waxaan leeyahay wadamayahow asluub isku yeela dimuqraadiyadda Soomaaliland ee godka ku dhacday ee haadaanta ka sii lulata dadka godka ku sii ridaya ee ka sii lulaya sii shidaya ee raba dimuqraadiyaddii uu waddanka ku naaloonayay ee muddada dhowr iyo 20 sano uu ku naaloonayay ee ku socday ee ku hormaray. waxaad moodaa inaad god ku sii ridaysaan dadka ugu badan ee sii shidaya inaad ka mid tihiin. wadamada xishooda ayaan idin leeyahay dhowr iyo inta Soomaaliland ay dhisnaydna Hargeysa waa joogteen wax allaale iyo wax horumar ah deegaanadiinii iyo meelaha aad representative-ka aad u tihiin ee aad matashaan haddaad xildhibaan tihiin iyo haddaad wasiir tihiin midna ma jirto. haddeena waxaad la soo baxdeen hawlo cusub oo gulwadanimo ah waad la soo baxdeen iyo qas iyo qalaanqal inaad ka mid noqotaan. marka nimayo waxay oran lahaa horta marka idinkoo isku duuban gulwadanimada daaya horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland inta la idin kala wareegaya dhalinyarada deegaamadaas ay idin kala wareegayaan ee new breed-ka ah ee siyaasadda niyadda u haya ee dadka u shaqeynaya inta idin kala wareegayaan dad wasiiratihiin iyo dad xildhibaan tihiinba waddanka burburinaya si nabadgelyo ah xilalka ugu tago oo u wareejiyo oo u nas taasaan kale talabaad rabo inaan ka hadlo waxa weeye baashe waa ninka ugu weyn nimanka gulwadayaasha harti aan ka hadlay ninka ugu weyn weeye uguna title sareeyo. Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninkay ari u dirsan weydo begeel u dirsataa, ninka ariga lagala quusto ayay geel u dirsataa. baashe xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre askari buu ka noqday, askarinimadii baa lagu aamini waayay. maanta ninkii askarinimada lagu aamini waayay baa reer Soomaaliland ay ka dhigteen ra'iisul baarlamaan.